darbaad qabtaayo marka waxa la noloshaan baad kaleed way leedahay qof maartay xirxiran baad tahay oo dhar qaba warqad ba ku soo dhacaysa noloshaan oo dhan marka waxaan u aqaanaa nolosha buuqa nolosha aan deganayn inay dharka dhigatay diyaarta macnaha xagaad u socotaa walaalay marka waa yaabnay noloshan caadiga dadna xagaa soo arka xil walba macnaha ay ugu qaadato ama in kastaba ay ila gaartay aan horta aan u guuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah ama maxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa cawaanta. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل توعنا وناكسن داود يلا الكادي داوني سان واسجان اوفيشال انا كنا waa saaxiibka Soomaalida asjaani isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan filayaa inaad ii xiiso qabtaan sida aan anigu in kugu xiiso qabo waa hagaag ku soo dhawaada mar kale saaxiib haddii aad ugu cusub tahay channelka subscribe saaro si muuqaalada xiga ay ku soo gaaraan haddii aad awal nala joogteen oo aad ku mahadsantahay videoga like saar waxaan idin wadaa muuqaal kale oo cusub muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay deeq afra دقافر داد مقشين مركي وركيد إنه قدام بيوحي هاد مركي يتري هدي عندنتو جد هلا إسارو مركي لا يسوى هذا الشيء هدي دقافر سوى هذا الشيء وحياب لكفلو علاج إن لقي ميربتا مسكلة وحوق خلدين ما أيضا ما نجع كخلدن وأرن يابله مقال ورئيسي ولا يشمت كمدا ورياش الصوماليات أي كشكت وحياب يابله مرة بينا إن كسي دالي هذا noo bilaabo muuqaalka noloshan hadda caadiga ah oo maartay inagu hadda aynu ku noolnahay oo adiguna aad caadi u aragtid dadkuna caadi u arkaan anigu waxaan u baxshay noloshii aan deganayn nolosha bila xasiloonida ah nolosha bila xasiloonida aan u baxshay noloshan marka bila xasiloonida aan ka hadlayaa waxay tahay waataynu hadda ku noolnahay sababta aan saas u leeyahay waxay tahay telefoon baa ku soo dhacaya maxaan korto TV ba waxa ka soo galaya war ka soo galaya maxaan ku idhahay tooyam gaari baad wadataa diyaarad baa wiifle dhar baad qabtaayo marka waxa la noloshaan baad kaleed way leedahay qof maartay xirxiran baad tahay oo dhar qaba warqad ba ku soo dhacaysa noloshaan oo dhan marka waxaan u aqaanaa nolosha buuqa nolosha aan deganayn waxay taagan tahay noloshan ku noolnahay ibni aadamku ku nool yahay caadiga ee magaalada joogo baabuurta socoto diyaaradu socoto telefoonada soo dhacayaan dharka la xiran yahay noloshaas oo dhan baan u nacay taaganta inay dharka dhigatay diyaarta macnaha xagaad u socotaa walaalay marka waa yaabnay noloshan caadiga dadna xagaa soo arka nolosha horta waa kadeedba bataatanba laakiin waxaan isiri horta bal deeqay hadaad maaragtay tan ad qofkii wixii intuu wixii maaragtay saluugo inuu hadana xal keeno waa muhiim marka waxaan isiri bal xalkeen maadaama aad noloshan aad u bixisayba nolosha xasilooni darrada bal nolol maaragtay tan dhaanta keen horta deeqa afar markii la fiiriyo sida uu hadlayso sida hadalkeed isugu toosan yahay sida ay qof caadi u tahay oo loo wareysanayo lama dhihi karo waa waalanta qof waalan waxa la yaqaanaa qof macnaha amiirkiisu joogin asaga dhan si kala ah oo macnaha sida caadiga qofka caadiga caafimaadka qaba lagu yaqaan aan ahayn haddana waxay taagan tahay noloshaan mar rabo halka inaa ka baxaa rabaa maxaa qaldan waxa maqli jiray qofkaas hebel fiilaa ka dabacsan معناها تمام معها والدي معناها موجودة جارين هافو كجرا وحير فيلوين بأسلاف هذا غافر فيلوين أسلاف ما دي كرنا مس أصحاب ثلاثة لسه إلى النول هبا هذا كو أن صومالي هن باقرشهان كذا دعية وح معان وقد غيرتين سو أركض وح أن كشجنو هبا يراتي أنا قوم بأقام adigu waxa ay kula tahay deeqa afra markaad aragtay sida hadlayso bal commentiga nagu soo qor warta marka waxaan ku fikiray inaan maaragtay aniga ahaantaydu intaan fikiro oo aan xil walba macnaha ay ugu qaadato ama in kastaba ay ila gaartay aan horta aan u guuro ama aan ka mid noqdo dadkan loo yaqaano dadka duurjoogta ah ama maxaa la yiraahdaa Soomaalidu waxay tiraahdaa
cawaanta meeshii aan rabina ogaado waa soo gaarnay noloshan ay ka cararaysay waaba aragnay iyo waxyaabaha ay leedahay diyaaradahan haada iyo waxaan isdaba marahan dhibsaday xagee u socotaa baan islaha dal kale u dhiman ma laha magaalka dii laga waayo duur la soo hara saacirkii in lagu noolaado dayax korkiisa wax fudud ma aan deeqa afrana kama suurtoodo waayo inaad dayax korkiisa tagtid qof cilmi leh oo howl haaya baa dayax korkiisa tagi kara deeqa afrana hadda wax iskama sugeynine bal duurka soo haray iyo badda soo hartay tii aadi doontaa aniga u jirta waatan waxaan rabaa ay taagan tahay inaan cawaanta ka mid noqdo macbuud al-ardiyo qof dhan ee nool hadda fiiri naatan wuxuu ku nooshahay Sweden ku nooshahay fanaanaday ahayd magacay leedahay maybe dhaqaale waa ay haysataa intaasoo dhan ayadoo haysato waxa ka kaxeeha oo cawaan inay dhax gasho dharka dhigato caleena xirato keenaa maxay tahay waxyaabo waxa jira markii ay aragtid adigu ayaabe macna aashib iska dheh jawaab weynaysid macna tan oo kala kamida bal nasiib yaabka uma yareen nasiib marka sheekadii anigu waan sii watay go'aankaygi waan ku sii adkaystay waxa dhacday markay walaalo Cabdixafiidow inaan aado inaan qiimeeyo horta xagan ka heli karaa marka xagee macnaha waxaan ka suurtagali karaa waxaan hadda maskaxda iiga jirta oo iiga guuxaysa xagee ka suurtagali karaa adigu sheekadii sii waday waxaan marka hadda ka hor aan dhowr jeer tagay dalka Indonesia ayaan waxaan tagay dhowr jeer marka dalkii markaan dhowr jeer tagay ayaan ka helay waxaan ka helay macnaha dadkooda miyiga kale waa dad free ah oo maaragtay dhulkuna waa dhul qurux badan marka meeshaas horta waxaan isla aleelahay noloshan aad sheegaysid oo degan oo bilaa buuq ah oo maaragtay qofku duurkiisa isaga jiro oo laba maaragtay caleen midna hoos lagu xiranayo midna kor lagu xiranayo oo aan maaragtay lahayn koronto iyo balaaye iyo cunno maaragtay wax lagu soo daray iyo waxaas aysa ka jirin oo dee natuur ah marka ani warta taasan maskaxdeeda geliyay deetana waxaa dhacday inaan maaragtay dadaal badan u galo oo maadaama dhulkaas aan jeclahay Indonesia oo hadda ka horna aan tagay ayaa waxaan sameeyay inaan maaragtay sii wado oo dhulkii tago oo bal at least wixii iiga suurtagali karaa laakiin waxaan maskaxda haddana ku soo dhacday de kaliga meeshaas ma aadi kartid way kugu dhib badan tahay de qof kaligiis meeshii aaday ma taqaanid maxaad samaysaa marka waxaan markaa haddana doorbiday inaan lamaano yeesho lamaanihii marka halkan haddii aan iraahdo qof halkan jooga ama meel kale joogaan inta kaxeeyo ayaan maaragtay u geynayaa maaragtay dadkaas cawaantaasaan ka mid noqonaynaa way nagu adkaanaysaa marka maxaan sameeyey waxaan doorbiday in aan meeshii aan ka helo lamaane in anagu ka helo deeqaf ruuxeedu waa ka daray waa wixeedu waa tageen gabadhaas anaga inaga dhalatay de aaw dadka ag jooga war dadka ag jooga oo Sweden kaadi balan wacay wax qabanaya male war halo naga qabs telefoon reer Sweden waa nagu dhageysteen awraawo de halkee ka soo jeedo kale awr reer jigjiga eber ayagana waxaan sameeyna ma naqaan war reer Sweden oo telefoonka naga qaba diideen bal muuqaalkan markuu idin soo gaaro qof walaalo qofku u dhow deeqa afra haatan intaysan boolashu aysan wada furmin ka gaara de waxaan ay sheegayso wax macquul ma qof iyo waxaas kuma hadlo intaysan duurka galin hadeerta intay gorgorta laga gaaro muuqaalka aad u dheer yahay asaga dhan waa yaab socdo qofka raba inuu muuqaalka dhameystiran daawado Cabdixafiid maxamuud jaamac channelkiisa ha booqdo halkaas ka soo daawado asoo dhameystiran wad kuma asan tahay daawashadaada muuqaalka xigta ku kulmeen waa saaxiibka Soomaalida Asijaan oo idile nooli kulante